beenaalayaasha adduunka jooga oo dhan marka la isu geeyo marmarka qaarkood midka ugu xumi waa cabsigaada. laba shay ayaa sideedaba in fara badan dadka ka hortaagan nolol ay ku qanacsan yihiin oo farxad leh inay ku noolaadaan. waa wixii ka tegay iyo isbarbardhigga dadka kale. taasaa sabab waxay ugu noqotaa inay xaqiraan waxyaabaha ilaahay uu siiyey ee ay haystaan. maxaa yeelay mustaqbalka wuxuu barbardhigayaa wixii soo dhaafay. waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyeyna wuxuu ku iloobayaa marka uu arko dadka kale ilaahay waxa uu siiyey. nolosha sideedaba guud ahaan qof raaxaystay wuu rafaadaa, mid rafaadaase raaxaysta. waxaad haysataa 168 saacadood asbuuc walba. 40 saac waxaa kaa qaadatay shaqo, 56 saacna waxay aaday hurdo, 35 saacadood qubays, cunto, hadal iyo wixii la mida, 7 saacadood inaad wax akhrisatid ood maskaxdaada kobci